Sharma Boy wuxuu soo wadaa heeso fara badan oo ku xayeysiinayo khamri iyo badeecad ama shiisha qof walba soo yaqaan. Waa heeso aan dhaqankeena iyo diinteena iyo akhlaaqdeena midna aan ku lahayn wax raad ku lahayn. Haddaba Sharma Boy heesta ugu horeysa ayaan tusaya Bella Makudela Baby kala say waxyeela intaan dhista magaalada waan kala bista mana waan ka sitaa high sister ma fariista ama rabo jacayl iga dhaaf dalka. heestaas waa hees niman Afrikaana I don't know wadanka Zambia ma inuu joogo. waa hees yani ay u sacbinay u tumayaan. laakiin Sharma Boy marsiis hore ayaa wax ka dhigay. Sharma Boy bal xaw ka soo bilaabo fanka ila yara daawo wadanku shaqo male halo yeelo dhalintu shiide maana la shuufo jeebku shili male halo buuxsho shahadadu macna male. okay ninkaas halkaas wuxuu ka soo bilaabay fanka inuu meel qashin soo xagiisa daba qashin tahay uu ka soo hees ka qaado dhalinyarada magaalada Muqdisho ama dhalinyarada Soomaaliyeed yani u noqdo maartay motivation soo kale yeesoo dee adigu dhiirigelin oo kale u dhaqaa wadanku shaqo male ha loo yeelo dabadna dadka noqdaan okay waaba ku taageereen waa runtiisa dhalinyaradu shid. anyway heestan nooca caynkaas ee loo sacbiyay waxay maanta gashay inuu inta Afrikaan u tago dad Afrikaan oo gaala ah oo waxa doonaaba yani madow intuu maanta u tago inuu khamri iyo shiishad iyo waxayna u dhaqan lahayn oo dhalinyaradana dadka u dhaqan lahayn oo maanta soo qaado. ma ku raacsanta arinta adigu shakhsiyan ma ku raacsanta ma doonaysaa yani maanta inay waxaan ayna soo galaan oo inoo noqdaan in khamri lagu soo heesaa waxad inay inoo noqoto waxa aad fudud inay inoo noqoto hees labaad baan ku tusaya sasway waxaan u qaba marwabo kas ani daddan madax galo bankiya berka ibalbalo intaaban isku daldalayaya. waxaad arki doontaa maalin dhow fanaaniinta waayo viewsku helo ayaa aad u badan. viewska uu helo ee daawashada helo ayaa aad u fara badan. وين ورا لما social media waxa qofku maanta wuxuu helaa social media soo heli lahaa dad badan daawado heli lahaa. marka inaguna maanta waxa ka tagtaa kuwa maanta heesaha meelaha ka yara heesaha Soomaalida ma aragtay gurtiyaguna the same way iyagoo sameynaysa helaan iyaguna views fara badan helaan. waa arinta yani maanta ay ku soo socoto weeyaan fanaaniinta cusub dambe ay noqoto wax iska caadiya ninka soo khamri cabaya inuu soo heeso normal of course isagoo ku jira waxyaalaha aynaan dadku qarsan jireen wax dadku qarsan jiray inta badan inagu balwada iyo xitaa fanaaniinteenu xitaa balwada iyagu sigaar cabaya may soo heesi jireen yani xagga dambe dhigi jireen nin walba isagoo balwad leh gabadh walba iyadoo balwad leh ayaa tan xagga dambe iska dhigtaan. laakiin waxaad arki doontaa maalin dhow waxaad arki doontaa wallahi waxaad arkaysaa kuwii dadkii nooca ahaa ee qarsan jiray oo ku faanay yes anoo sigaar cabaya anoo khamri cabaya anoo shiishad cabaya anoo xashid cabaya maadaama ay soo dhiibteen fanaankii 2021 ku lahaa waxaana kaleetana waa noo koow waxa waaye waxay ka mid tahay mucjisana lama dhigi karo waxyaabaha dhacmi faanteen kal ilaaba anu aad baan uga naxaa wallahi alcadiim aad baan uga naxaa marka arko waxa kusoo kama warwariyo isaga ilaahay isku tagaya laakiin waxa ka warwariya dhalinyarada dambe ee ku dayanaysa iyo sida inuu noqon doonto berito wax iska normal ah. maanta la helo 1 million ama 3 million ama 4 million views ama subscribe ama inay isku noqdo iska caadi. dadka qaar baa moodayna qabiil iyo wax ku taagay yani ku caayay ama dinta qabiil ma taqaano dinta ilaahay baa iska inagana ka mas'uul ilaahay baa dinta ilaashaya laakiin inaga bana mas'uuliyad bay naga saaran dhaqankeena inaga mas'uuliyad bay naga saaran dhalinyaradeena wanaagga mas'uuliyad bay naga saaran. anyway Sharma Boy anu heestu soo wado kamid والله كمية شيء شرما Boy soo wado waana hees aad arki doonto qaar badan oo bilto iyagu laftigooda iyagoo saas kala sameynaya maanta haddana wax laga qaban bilta oran ala calina dhalinyarada ha ala calina ama wada dhaqan ku xumay saaran ugu san adaa sacbiyay adaa Sharma Boy wax ka dhigay adaa maanta u lahaa yes come on let's do it ina mari soco Sharma Boy
maantana wuxuu kuu keenay intuu khamri kuu soo cabo inuu kugu soo noqdo oo kuu heeso adiguna wad sacabiso. That's it. So waxaanu kuu qaban karaa anu ka aad bay wada sanamay dhammaantiin baa